xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta waxaanu inala galay meelo badan oo aad iyo aad u adag oo carruurta aan aabbiyo hooyo lahayn markay weynaadaan ay qaan gaadhaan ay noloshii ijtimaacigaha galaan dhibaata agtibed sidee loo xaliya sheekhu in badan buu sharaxay shareecadii iyo halkay wax marisay dhaqankeenina waa garanaynaa iyo halka uu adeeg leeyahay waxayna tahay qodobkaa dib baynu uga saaraynaa sharcigaa dib baynu udhiganaynaa wuxuu u baahan yahay daraasado badan oo diini ah oo xeer ah oo dhaqan ah oo aqoon in la isugu geeyo waa mushkiladin hor taalla carruur badan oo aabbiyahooda aan la garanayn oo qaan gaadhay oo xaasas yeeshay oo ay dhibaato ka timid sheekhu wuxuu inoo sheegay in nin dhalinyaro ah oo raggaa ka midii uu gabadh guursaday oo wiil u dhashay oo reerkii oo iska wanaagsan oo ilmihiina u koray dib loo faaqido leeyahay inankaan carruurta aad guursatay kaa dhalay muxuu ahaa deetana ay gabadhina yaabtay reerkii uu dumay inankii u dhalay iyo isagii intuu qol isku xidhan labadoodiiba ay gubteen iyagoo lafaa loogu yimi iyo mashaakil lamida marka waa xal u baahan xag diimeed iyo xag aqooneed iyo xag mujtamac iyo xag dhaqanba in la isugu tago xeerka maalgashiga isaga doontiisa waxaynu bilaabaynaa haddii ilaahay idhaahdo shirka dambe saddexdaa xeer